waxaan imid jimcadii aynu soo dhaafnay Liido xeebta oo ay ku dabaalanayaan ugu yaraan ay ku ciyaarayaan 100 ilaa 150 kun oo dhalinyaro Soomaaliya oo aad u tiro badan waxaan arkay malaay kalluun dhiig ka da'ay oo xeebta la soo dhaxmaray amarka ana bixiyay inaan xeebta lagu arkin wax kalluuna oo qalan waa fiican inuu ka fikirno horey u dhacday in yaxasbadeedku intuu badda yimid dhalinyaro Soomaaliya ku cunay carruur Soomaaliya ku cunay intimaadada laga fikirno waa fiicantay waxaan rabnaa xeebtan inay noqoto xeeb nadiif ah oo loo soo dalxiiso oo dhalinyaradu ay yimaadaan oo ku caweeyaan oo ku dabaashaan dhiiggaas wuxuu soo jiidanayaa yaxasbadeed iyo wax dhibaato keeni kara labada arrimood hadda gudoomiyuhu ka hadlay waa ka wada hadalnay mid waxaanu ka hadalnay nadaafadda xeebta tan labaadna waxaanu isla meel dhignay inay habayn doonaan qorshaha ah kalluumaysiga loo yimaado baddan Liido inay xadidi doonaan ay u sameyn doonaan system ka duwan kii horeeto oo nina intuu gacanta ku soo qaato kalluun dhig leh aanu xeebta la soo dhaxmarin kalluunkaas soo jiidan kara yaxasbadeed waxaan isuga xil saarnaa sida amnigaan isuga xil saarno magaalada gudaheeda in xeebta iyo baddana laga helo ammaan laga helo waxa ka howlgala ciidan ilaa 80 qof maalin walbaba jimcada iyo khamiistana waxa ka howlgala ilaa 200 oo ciidan ah dhammaantood ama ilmaha fanay ha noqdaan waxay badaqaad ha noqdaan doon gadoota ha noqdaan amnigooda anaguna saaran